aniga haddaan iska warbixiyo dhakhtarka waan wacay arrimahaygaan u sheegtay qaabka la ii hayaan u sheegay xanuunkan oo igfishinka waa ahaayey waqti dheer oo dheer buu ahaayey dhakhtar kasta waan tegay waddankan Sweden intaasna waxaa la ii qorayay kaniini kiimika wax isbedela oo in hal ekaatee waan waayey markii dambana dhakhtarkan la xiriiray dhakhtarkuna wuxuu ii keenay daawo wuxuu ii soo qoray maasha Allah oo tayadeeda iyo waxtarkeedu aad u sareyso waan sidoo yiri u isticmaal baanu isticmaalay shanbari markaa isticmaalahayba isbedel weyn baan iska dareemay dadka waxaan kula talinayaa waan u sheegayaa meel walba ay joogaan kiimikada daawadan oo dhirta ka qayb badan oo Dr. Jaamac uu haayo qof walba dhakhtarkan waa dhakhtar taqasus u leh arrimahaas oo hadii ku roon yahay waxtar aad u sareysa la daawadiisu marka qof kasta oo xanuun kasta qaba ama xanuunada qaba la xiriira dhakhtarka daawadaas daawo oo hadda dhibaato qofka u geynaysa maahan anu kulay taada waan isticmaalay waana ku faa'iiday waana ku fiicnaaday waana ku raystay inta kalena taladaas waa siinayaa oo dhakhtarka codkiisa haday dhageystaan oo hadalku kilibadiisa meelaha ku jira daawadaas anigu waa laftayda waan dhageystay kilibo badan baan dhageystay oo dhakhtarka oo YouTube kan ka dhageystay intuu dad caawiyo Soomaaliyeed oo hadal ku roon nooc walba xanuun kasta uu ka daaweeyay marka intaas daawadana waxaan hadal ku roon yahay gartay dhakhtarka inaan xiriir la sameeyo xiriirna waa la sameeyay kadibna daawadii uu ii soo dhiibay ma sha Allah khayr badan Allah siiyaan leeyahay dhakhtarka taladayda taasan hadal ku roon yahay ummadda Soomaaliyeed ku baraarujinaya oo aan u sheegayaa Dr. Jaamac oo adiguna aad iyo aad baad u mahadsantahay saa ummadaada ugu taagan tahay ugu heeloon tahay inaad xanuunada iyo wax hadal qabaan ay ka daawaysid khayr badan Allah ku siiyo ajar aan la soo koobi karin Allah ka siiyaan ku leeyahay Dr. Jaamac. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.